gabdhihii tiktokeriska ahaa ee magaalada muqdisho isku dagaalaya habar gidir iyo abgaal ayaa xaalad halisa ku wajahaya xabsiyada magaalada muqdisho xalay ayay halkaa ku hoydeen waxaana la filayaa in maxkamad loo gudbiyo iyadoona xukun oo ku dhici doono haddaba xukunka adag ee la rajaynayo inay wajahaan muuqaalka rabaa inaan kugula wadaago sidoo kale waxaa aad baraha bulshada u qabsaday sawiradii laga qaaday gabdhaha oo dadka qaar ay bilaabeen inay kala soocaan oo ay dhahaan qayb baa loo eexdo la qurxiyey kuwana waa la falxumeeyey war abgaalow ka cafiiri wallahi waa la xaqiray gabdhahay bal sawirka fiiri gabdhaha abgaal ismaan afka isku hayaan saad waxaad u qabtaa guumeys roobaabeed qoyay kuwa habar gidirna waxa waaye sawirka sheenaa loo galo waaya marka ugu horreyda aan ku hormaro 24 qofood ayay booliska Soomaaliya cadeeyeen in xabsiga loo taxaabay xalay kuwaas oo ahaa kuwii baraha bulshada lagaga naso waayay horinta labada qabiil ee weyn ee habar gidir iyo abgaalna meediyaha ka waday saacadihii la soo dhaafay waxaa la filayaa maadaama eedda lagu soo eedeeyay ay soo cadeeyeen booliska kaas oo ah kacin bulsho xukumo adag ayaa ka dhasha waxaan la filayaa in xukumadaas adag ee wajahaan haddii loo qafiifiyo maadaama gabdho ay yihiinna laga yaabo ugu yaraan bil ama 2 bilood oo kale inay xabsiga ku sii jiraan ama ganaax lacageed la saaro kadibna digniin adag la siiyo kadibna xabsiga laga soo daayo taa u noqonayso kama dambeys inaan mar dambe loogu dul qaado doonin wixii hore u sameeyeen haddaba intaa markii laga soo tago arinta kale oo yaab kale ayaa waxa ay ahayd dadka kale ee dibadda iyo waliba dalka meelaha kala duwan joogay ayaa wali sii wada buunbuuninta sheekadan iyagoona sawiradii kala qaaday gabdhihii galabta waxaa dhacday in gabdhihii kuwii xirray iyo kuwii kaloo qalalaasaa ka mid ka ahay in la soo wada qaaday dawladdu ay xirto markaasaad intaad baxdeen oo sawiradii gabdhihii kala qaadeen qaarna editing ku soo fool xumayseen qaarna editing ku soo qurxiseen waxay aaminsan yihiin in gabdhaha habar gidir laga qaaday sawirada kaamera qurxoon ama telefoon qurxoon kadibna la edit gareeyay halka gabdhaha kale abgaalna iyagoo aan diyaarsaneyn oo sheekadan ku soo talagelin si qaldan sawiro loo qaaday kadibna la sii fool xumeeyay waa hadal heenta ugu badan ee baraha bulshada ka taagan saacadihii la soo dhaafay qof walba oo xabsi la geeyay meel aroos lama geeyin dhammaantood xalay waxay ku jiifanayeen salli oo kaliya ama shamiitada qolka ay xabsiga kaga jiraan halkaas ayaana basbaaskii kululaay lagu siinayay xalay oo dhan dadka meediyaha ka qayliya inta badan sheekada qabiilka kiciya waa dad aan ku sugnayn wadanka Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho dhammaantood waxay joogaan wadamo hormaray oo nabad ah guri mukeyfa isaga oo ku jira ayuu halkaas inta live ka soo galo dabka ka kiciya waxaana la dhahaa dhalinyartii meeshan joogtay kaca iska dhiciya dagaalka gala dadkaas ma idinka fiican dabka ayaa lagu shidaa haatan waa aragtiin dadkii dabka lagu shidayay xabsiga ayay ku cabayaan basbaas shin kuwii soo shidayeen live afka ayay wali saaran yihiin oo waxa ay taagan yihiin inay falanqayaan sawiradiinii xabsiga la idinku geeyay haddaba markii ay xabsiga ka soo baxdaan gabdho adinkoo banaanka joogtana xaaba lidinkugu shidanayay ahaa markii xabsiga aad tagteena sawiradiinii la falanqaynayo oo la leeyahay kan waa foolxun yahay kan waa qurxan yahay filtero nacla abaha ku yaal waliba commentary ku dhiglayaashina idin sii dheer yihiin waxaa sharaf darro idin noqonaysa inaa mar kale markii aad banaanka imaadaan godki shalay ku dhacdeen ama labaad ku dhacdaan noloshiina caadiga ina iska wadatiin sheekada qabiilkii waxaas iska dhaaftiin dhalinyaro tihiin mustaqbal in sugaya qabiil iyo waxaasna waxba idiima tarayo qof walba businesskiisa iyo waliba meedihiisa si positive maadaama Soomaali oo dhan u baahan yahay inuu halka ka sii wato xukun in lidinku soo rido oo ayaan xabsiga lidinku hayane waxay u fiican tahay dhalinta kale ee ku dhiira lahayd wadadiina iyo waliba adinka laftirkiina oo idin tahay cibra qaadasho haddaba waxaa sugnaba waxay tahay xukunka lagu ridi doono gabdhahaasi dhalinyarada ah miyaa loo qafiifin doonaa mise xukun dheer ayay qaadan doonaan haddaba saaxiib adigu maxaad is leedahay bal qaybta commentiga igula soo wadaag